Videogan kooban waxaan isku dayaynaa inaan kaga hadalno isbedelkii ku yimid shahaadada CCNA levelka. Cisco waxaa ku dhawaaqday isbedel 2019 June in shahaadooyinkii faraha badnaa ee CCNA levelka ahaa waxaan filaya inay ka koobnaayeen ilaa 11 shahaado lasku soo ururiyey 2 shahaado kaliya. Qofka doonayay markuu route switch inuu barto waxaa jirtay meel uu ka bilaabo loo yaqaan CCNA route switch. Haddii qofku doonayo inuu wireless inuu barto tusaale waxaa jirta CCNA wireless. Hadda warkii oo dhan waa laga yimi waxaa la isugu soo daray hal CCNA la iskaga dhigay. Habada CCNA la iskaga dhigay ilaa 6 qaybood bay ka kooban tahay. Kaasoo videogeenu daaran yahay xogaa little bit information aan ka siiyo wararka iga soo gaaray imtixaanku siduu yahay iyo sida ugu wanaagsan aad kooraska aad u diyaarin lahayd. Shahaadooyin kale oo associate level jira sida CCNA cyber associate, cyber ops associate iyo mid cusub oo programmability automation lagu talagalay oo definite associate leedahay. Marka bal browserka haddii aan soo furno halka haddii aan ku qorno Cisco certifications URL-ka noo soo baxa ee website-ka Cisco aan galno. This is the first one ka aan tagno. Waxaan eegi doonaa blueprint-ka halkan waa up to date training-kii ugu dambeeyay next level certifications bay u bixiyeen. waxay ka kooban tahay waa kuwan interiga marka laga imaado this is the associate level taasaan ka hadlaynaa. Marka focuska waxaan saari doonaa only CCNA si waxaa jira ayaguna definite associate waa cusub tahay oo programming iyo waxba la xidhiidha iyo cyber ops associate. Marka tanu baan ka xooga saarnaa aan ku dhufano CCNA gana wuxuu ka kooban yahay 60 domain 60 qaybood. Marka waxa la isku soo daray inta badan waa enterprise inta lagu isticmaalo router switch design wireless security automation and programmability. Intaas la doonaya qofku ereyooyinkan faraha badan leh inuu imtixaanka ka diyaariyo. Marka waxaad u imanaysaa qaybtan required exam course 200-301 waa hal imtixaan kaliya oo 2 saacadood baa lagu ogol yahay. Su'aalaha ku imanaya waxay soo gaarayeen inay yihiin 100 su'aalood inay ku imanayaan imtixaanka midiiba waxaa suuragal ah in 1 minute ku hesho su'aashii banaad kaga jawaab. Marka haddii aad doonaysid exam objectives-ka waxyaalaha ku imanaya imtixaanka lagaga baahan yahay inaad diyaarisid download ku dhufo linkigan. PDF format baa ku soo baxaya waa 4 page 4 page wuxuu ka hadlayaa waxyaalaha lagaga baahan yahay aqoontooda inaad haysatid imtixaankana mawaadiicda ku imanaya intan halkan aad ku arkaysaan weeye. Waxa kamid ah matalan VLAN ku sidoo shaqeeya configure iyo verify ka shaqeysii hono hubi VLAN sidoo shaqeeya isagoo aad isticmaalaya normal range-ki. Marka halkan lab baa ku jira labkaas waa inaad taqaana marka hore VLAN wuxuu yahay VLAN marka taqaanid wuxuu yahay iyo wuxuu tarayo ka bacdi inaad ku sameysaa configuration halka kaga tagaysid oo hubinaysa configuration-kii inuu sax yahay iyo inaanu sax ahayn si loo baahnaa miyuu noqday mise muu noqon. Soo mawaadiicdu saasay u kooban yihiin. Network access waa 20% waa qaybta labaad mid walba percentage-keeda inta ku imanaya waa ku qoran. Intaasoo dhan waxaa laga yaabaa qofkii router switch inna wax ka soo arkay in halka kaliya ka cusub Cisco dhanba ka cusub waxa weyn automation iyo programmability. Qaybtan waa qayb yaro code-ka iyo sidoo u shaqeeyo iyo APIs-ka northbound iyo southbound SDN-ki waxaasi waxyaalaha ka hadlaya ay yihiin waan halka network-u hadda u socdo oo xoogaa programmability baa soo galaya shaqooyinkii CLI-ga ku qaban jirnay configuration-ka waxa la doonayay in APIs la isticmaalo. Nasiib wanaag halkan wax code lagaga baahan yahay raata lagu leeyahay code qor ama JavaScript ama Python ha ahaato kuma jirto. Se description iyo explain iyo compare bay ku kooban tahay. PDF-kan marka soo download gareysaan aad soo daabacatid mowduuc walba diyaarisid waxaad u baahan tahay guide-kii. Book waxa jira Wendell Odom qoran Cisco Press halka ku qor. Cisco Press waa company-ga soo saara buugaagta Cisco inta badan. Marka nin la yiraahdo Wendell Odom oo CCIE ayaa buuga qoray CCNA ilaa 20 sano ugu dambeeyay qofkii qoray isagoo ahaa. Haddii aad u baahan tahay marka hard copy ama PDF halkan aad ku kala dhufan kartaa. Soo qaybtan u imaado next level. Marka buugani waa buug ballaaran oo ka kooban yahay 2 volume. Volume 1 oo 60% iyo volume 2 oo 40% ka soo haraya. Labada haddii aad doonaysid kala gooni baad iibsan kartaa. Si haddii doonaysid labada buug oo la isku daray inaad iibsatid waxa loo yaqaan official cert guide library. Waxa la soconaya buugaas haddii premium edition ka iibsatid practice exam. Practice exam ku isna faa'iidadu leeyahay waxa kamid ah
in formatku imtixaanku ku imanayo qaabka imtixaanka uu ku imanayo inaad marka waxay kor u qaadaysaa inaad asku qiimeyn kartaa even xitaa inaad mawduucii fahantay iyo inaanad fahmin halkaad u baahan tahay inaad kor u qaadid halkan ku hayaa PDF-kii dad aragta halkan waxa weeyaan waa 1800 page buu ka kooban yahay ma yara actually marka aad buu fara badan yahay oo volume 1 iyo volume 2 oo la isku daro PDF version ah exam practice examkiisana waan hayaa so labadaas oo la isku daray iyo labisko la sameeyay qof walba imtixaankaas waxaan rajeynayaa inuu guul ka gaari doono u baasi doono muhiimku ma aha kaliya imtixaankan lagala labaaso si aqoonta ku dheehan CCNA levelkaas ayaa hadda mustaqbalka wax ku taraya as a network or infrastructure engineer cidii xiiseynaysa kooraskan CCNA cusub waxaan ka bilaabi doonaa cilmi academy haddii alla ka dhigo kooraskaas isagoo inta badan xoogan saari doono qofkaas imtixaanka siduu ugu diyaar garoobi lahaa aqoontii practicalkana uu heli lahaa materialkana ardayda inta badan waan la share gareyn doonaa practical examkaasna wuxuu noqon doonaa stepka ugu dambeeya baan salaamaya intaasan videogan kooban aan doonaya inaan idinkaga faa'iideeyo assalaamu calaykum